marka shiina culey agtiisa qatara ahay iyo heeraa gaari iyo filinkaas dhan kama socoto shiina culey agtiisa filinkaas ani waa la ii sheegi karaa magaalada hadday soo wada kacday basaska hadday bilowdeen ناي جوجي شغلها كنت صنعي ناقع عسريات فاتحي مركز وقعلي وري جوجي hadda marka basaska bilowdeen baskiya iska raaca hadda yaa badiyey abta ani dhibcaha waxaa wataan jarmal iyo kenya wataan runta kuu sheegaa walaalkay wuxuu sharaftiisa kusoo cesho karaa inuu ani iga soo agdhowaado inuu baarley kusoo laabto oo sharaftiisa kusoo cesho karaa fanaanka caanka ee Lil Balil ayaa kabaha la dulmaray saaxiibkiisii hore ee King CK. Lil Balil ayaa laga duubay xilli live oo ku jiray hadallo xanaf ah kuwaasoo muujinaya in wali cadaawad xooggan ay ka dhex taagan tahay Lil Balil iyo waliba King CK. haddaba fanaanka caanka Lil Balil xilli live oo kaga jiray aaladiisa Instagram-ka ayaa dadkii live-ka u soo galiyay waxa ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan cidda ku adkaatay dirirta ka socota social media King CK, Shiina Culey iyo waliba Wizby. haddaba Lil Balil ayaana saaxiibkiisii hore u sheegay haddii uu rabo inuu guul gaaro inuu isaga ku soo aglaabto si uu guul uga gaaro ragga ay is hayaan. haddaba daawadayaal muuqaalo iyo waliba codadka Lil Balil ayaan idinkula wadaagi doonaa barnaamijkan ayagoo xiise iyo xamaasad gooniya xambaarsan. balse intaanan u gudagelin fadlan marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saarataan videogana aad like saartaan saaxiibadiina aad sii gaarsiisaan sidoo kale page-keena Facebook-gana aad like saarato. waa hagaag fanaanka caanka ee Lil Balil ee ku xadareeyay raabka ayaa mar qura bahdil ah loo meeldaynin dusha kaga dharbaaxay saaxiibkiisii hore ee fanka uu daaqada ka soo galiyay ee King CK. yaa markaa mees haysta ya filinka iga daba geeyay haysta filinka waxay haystaa baashi waxay ku bilaabatay waqti marka hore xaribkii walaalkay CK iyo waxay ka dhex bilaabatay iyo Wizby haye waa la iskarbaashay baash xoogaa marka Wizby dhankiisa xoogaa u badatay dhibcaha u bateen haystan u leeyahay mar hore sameeyay mar hore sameeyay baash xoogaa dhibcaha u bateen ya unugeetaas u barahay ani Wizby aan horta ku sheegay Wizby wuu baahan yahay Wizby baahiya heesa CK markuu arko CK dhan wuxuu u maleeyaa xabad moos oo u maleeyaa inuu fiiqdaaga baqa marka la wana Shiina Culey hadda imka jafo dadka jafo bilaabay abti Shiina iyo qosliye baraa maalin haddaba Lil Balil iyo King CK ayay ahayd markii ay soo baxday xurguf ah xilligii Yurub ay wada imaadeen Lil Balil halkaasi ay ka dhacday inay isku qabsadeen lacagihii yaraa ee ka soo galiyay showyadii ay wada jirka u qabsanayeen balse halka markay sheeko maraysa ayaa waxa ay noqotay inay labadoodu kala goostaan oo ninba dhinaciisa u shaqeysto wax badan ayay qariyeen cuqdada iyo waliba waxa dhexdooda yaalay balse Lil Balil ayaa qarsan waayay xilli live oo kaga jiray aaladiisa Instagram-ka balse kuma uusan xisaabtamin in ay jiraan dad duubayay muuqaalkiisa live-ka ah bal marka hore ila daawada qaybo kamida bahdilka uu geystay Lil Balil King CK. marka Shiina Culey agtiisa qatara ahay iyo heeraa gaari iyo filinkaas dhan kama socoto Shiina Culey agtiisa filinkaas ani waa la ii sheegi karaa ani inta ii imaatid way dhihi kartaa saasa sameeya qatara way dhihi kartaa laakiin Shiina Culey iyo marka walaalkay wuxuu sharaftiisa kusoo cesho karaa inuu ani iga soo agdhowaado inuu baarley kusoo laabto oo sharaftiisa kusoo cesho karaa kusoo laaban wax sharaf ah oo taala ma jirto sharafta laga raacaa ma fahanti ya Soomaalina waxay dhacday ninka hadal badan maaragtay dhaxalka hooyada aabaha oo qaataa wala qaybsadaa ma fahanti ya marka wuxuu eg tahay Shiina Culey iyo Wizby inay dhaxalkii kala qaybsan rabaan soo meesha karbaash xalaal baa ka socda karbaash xalaal oo wax dambiya ka soo gaarin hadda yaa badiyey abta ani dhibcaha waxaa wataan jarmal iyo kenya wataan runta kuu sheegaa yaa wata dhibcaha Germany iyo Kenya wataan dadka Kenya jooga iyo dadka Jarmalka jooga dhibcaha wataan marka ninka odaga ahay waxa laga rabay marka aniga xataa inuu iga soo ag dhawaado oo Balil oo hadda maxaa wax qabanaa hadda anaka isku family iyo anaka isku saandarsi jirna oo ceesh la cunay maxaa qabanaa dee aniga laftirkeyga oo iga cararaba gaar isku taagay
ani laftirkeyga iga tego gaaro. isku soo wada duuduub halkaasi waxaa inooga muuqda in liil baliil uu aaminsan yahay keliya CK haddii uu guul doonayo inuu agtiisa imaado si uu ugu sameeyo heeso oo iskaga difaaca Wizz-B. sidoo kale waxaa dhowaan la filayaa inay soo baxdo hees kale oo karbaash ah oo Wizz-B diyaarinayo. fariintan liil baliil hawada usoo mariyay saaxiibkiisa hore CK ayaa hurdada u diiday caawa maadaama saaxiibkiisii hore uusan ka filanaynin bahdil caankan oo kale ah. markaa meesha haysta ya filinka iga dabageeyay haysta filinka waxay haystaa baashi waxay ku bilaabatay marka hore arifkii walaalkay CK iyo waxay ka dhex bilaabatay iyo Wizz-B haye waa la iskarbaashay baashi xoogaa marka Wizz-B dhankiisa xoogaa u badatay dhibcaha u bateen haystan uu leeyahay mar hore sameeyay yani mar hore sameeyay baashi xoogaa dhibcaha u bateen ya unugeedaas u baratay ani Wizz-B aan horta ku sheegay Wizz-B wuu baahan yahay Wizz-B baahiya heesa CK markuu arko CK dhan wuxuu u maleeyaa xabad moos wuxuu u maleeyaa inuu fiiqdaa ka baqaa marka la wada shino culi hadda imka jafo dadka jafo bilaabe abti shino way qosliye baraa maalin marka shino culi agtiisa qatara ahay iyo heera gaari iyo filinkaas dhan kama socoto shino culi agtiisa filinkaas ani waa la ii sheegi karaa ani inta ii imaatid way dhihi kartaa saasaa sameeya qatara way dhihi kartaa laakiin shino culi iyo marka agti walaalkay wuxuu sharaftiisa kusoo cesho karaa inuu ani iga soo ag dhawaado inuu baarlin kusoo laabto oo sharaftiisa kusoo cesho karaa kusoo laaban wax sharaf ah oo taalla ma jirto sharafta laga raacaa ma fahanti soomaalina waxay dhacday ninka hadal badan maaragtay dhaxalka hooyada aabbaha oo qaataa wala qaybsadaa ma fahanti marka waxay u eg tahay shina culey iyo Wizz-B inay dhaxalkii kala qaybsan rabaan soo meesha karbaash xalaal baa ka socda karbaash xalaal oo wax dambiya ka soo gaarin hadda yaa badiyay abta ani dhibcaha waxa wataan Germany iyo Kenya wataan runta ku sheegaa yaa wata dhibcaha Germany iyo Kenya wataan dadka Kenya jooga iyo dadka Germany jooga dhibcaha wataan marka ninka odaga ahay waxa laga rabay marka aniga xataa inuu iga soo ag dhawaado oo noobalilo ay hadda maxaa wax qabanaa hadda anaka isku family iyo anaka isku saandarsi jirna oo ceesla cunne maxaa qabanaa dee aniga laftirkeyga oo iga cararaba gaaru isku taagay aniga laftirkeyga iga tego haddaba daawadayaal waad ku mahadsantihiin sidaa u daawateen muuqaalkan muuqaalada xiga intaan ku kulmayno sidaa iyo nabaday.